qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu xabaan ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay fahmisa kula ya dadka la mid buu kula ana qof ka dhigay kan ma adarkii buu yiraahdo dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore ma dameer buu amsa daayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر المخلوق فإنه داء. الحمد لله إلهي بانكو حمدنا ولا ليال أبين جمعة أو بركيسن مساجد كاس إلهي تبارك وتعالى وليه عبادة إلهي اللورد سي الله النبو كلن سيبا محله runtii جزاكم الله خيرا. علماء وين لا جوجتا خيارتيني أكابرتيني علماء لكن أنا كوحن وإيمان كليا أما نيسو زيارة إن أنس براروجنون. الموعظة تذكرة للعالم وتعليم للجاهل بالليل. الموعظة هذا مالي أي كرد عدوانا يا نصيحه. caalimkana waxay u noqonaysaa tadkiro oo cilmigiisii baa la xasuusinayaa, jaahilkana waxay u noqonaysaa diin barashay u noqonaysaa oo cilmi ka maqnaa buu ka faa'iideysanayaa majliskaas. innakuna waxaan nahayba insaan macnaheegu waa kii ilowshaha badnaa. insaan bani aadam bashar insaankaasi mar walba wuxuu u baahan yahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo. oo qur-aanka dhan baa ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin, in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin. nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku sheegay inuu yahay mudakir, xasuusiye. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. maxaa bani aadanka markaa la xasuusinayaa? bani aadankan waxaa la xasuusinayaa ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alle keligii ay caabudayaan. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آدم عليه السلام markii aabaheen la abuuray ee arlada loo soo dhaadhiciyay jabal nucmaan halka carafaad ay ku taalo, halka nabi aadan calayhi salaam oo ku sugan ayaa ilaahay jalla wa ala dhahriga nabi aadan ayaa ilaahay ka soo qabtay arwaaxda awlaadiisa. markaasaa hortiisa lagu sheedhiyay buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaa ilaahay ballan wuxuu ka qaaday arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay allahu rabbulcaalamiin, rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay buu ballan ilaahay ka qaaday.
ونقرسي إلهي فأشهدهم على أنفسهم مركز إلهي كويري أنو ربكي إن أومي إن أرزاق أي إسكاكين لها ميانا نهين قالوا بلا بيدادين كل قول بلن كاسا بني آدمكو أي سوغلين إن إلهي جل وعلا كليجي أي عابديان وكليجي أي أضيعيان وكليجي أي بريان وكليجي أي سكور دولدغيان وكليجي أي باهدودا u sheeganayaan ballankaas bini aadanku way soo galeen laakiin arladan markay yimaadeen basharkii bini aadankii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamaci iyo bi'adii uu ku barbaaray ayaa saameysoo badishay kullu mawludun yuladu ala alfitra fa imma abawaahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ilma kasta oo dhashay buu nabigu calayhi salaatu wassalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waalidun baa xaga yahuudiyada u qaadayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waalidun baa nasraani ka dhigaya ama labadiisa waalidun baa majuusi ka dhigaya buu nabigu calayhi salaatu wassalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitradii saliimka ahayd ee ahayd فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فطرة دي توصنيد أهيد إنه إلهي تبارك وتعالى وكلجي ويهي معبود كلا بريء إلا ويني إنه أسجى يهي فطرة دا إياك وقلبك أي كجرتو أي بني آدم كأدون كان أي مادين لكن كل بمجتمع قفك وكل حبر بارو أي مركب قفك بني آدم كسامين يراد كوي لنا أيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون marka bani aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arlada markay yimaadeen badana ballankii way iloobeen way halmaameen rahmatan minhu jalla wa ala ilaahay isagoo bani aadanka u naxariisanaya oo mar walba adoomihiisa khayr mirayo jecel ayaa ilaahay jalla wa ala wuxuu u soo dejiyay kutub waxaanu u soo diray maaragtana ergo boqol iyo intaasoo kun oo nabi oo 312 rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shariicada oo ilaahay jalla wa ala bini aadanku samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadankan u soo diray sabal bini aadankan ballanka ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin mar walba u xasuustaan oo quraankii aayaadka ilaahay lagu gartay culimadu yiraahdeen waa laba aayadood midna waa midan inala hadlayso waa quraankii midna waa midan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa quraankan weeyaan haddaad quraanka u fiirsato 80% quraanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu quraanku ka warramayaa juz'amo oo kaliya 19 meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo kaliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah azza wa jalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxa laga dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata marka inaad adeecda ku dhib yaraan marka bani aadankan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa in ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid ah inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana weligaa ha xasuusan lacalahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu بكثير من الأنبياء بودي نبي فربضان أيان صحبة الله صويا شيء مجالس تودي سدد مسألة أيان كسوة فائدة استبودي يقبر إنك يجيو هذا صلاة أتوكن سنة قلبك أجا إلالي هذا الله فردنا عربك أجا إلالي أنت هذا عنا سنة علوش هذا إلالي أقل هذا قشنا عندها أجا إلالي بكويدي هذا صلاة أتوكن سنة قلبك أجا إلالي وقلبك أجا يونا ملك الأوجي سنة قلبك أجا صلاة دحلة ده هكون مشغوله الله عز وجل الله هذور جوكتو قلبك أكون مشغولي هذا الله فردنا وحكور عربك إلى الصو
aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalsho cunto haddaad cunaysana maaragtaane calooshaada ilaalsho labana weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana ha xasuusan labada uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi ithnaani laa tansaahumaa wa ithnaani laa tadkurhumaa buu ka yidhi laba weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas wa isaa'atuhum ilayka wanaagga dadka aad u samaynaysid weligaa ha xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysa wanaaga marka u horraysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weliga ah xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegta inaad noqoto aad halis u tahay gallad sheegte gallad sheegtana waayo waa ilaahay saddex waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay maalinka qiyaamaha saddex la hadli maayo xaggoogana ilaahay daymooni maayo dembina ilaahay ka dhaafi maayo cadaab kulul oo daranna way leeyihiin saddex jeer buu nebigu erayadaa ku celiyey abu dar alkhifaari ayaa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuula allah way hoogeen wayna khasaareen kuwaasi ayay yihiin nebi allow noo sheeg markaa buu nebigu yidhi almannaan waa ka dadka u gallad sheegta buu rasuulku yidhi gallad sheegte qofka mar walba dadka yidhahda waxaasaan kuu sameeyey anigu xaabaan kuu qabtay anaa magaalada ku soo geliyey sidaa ku lahaa mid kale mid buu ku lahaa anaa qof ka dhigay kan maad arkay buu yidhi dadka anaa qof ka dhigay buu yidhi oo marka hore ma dameer buu amsadaayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qofka anaa sameeyey iyo anaa wax kaa dhigay iyo anaa dadka kugu daray iyo haddaan anu jirin maba jirteen iyo may waa inaad ahaataa marka u horraysaba haddaad ummadda wax u qabanaysa ilahay darti wax ugu qabo laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura ikhlaasku waa cajiib allah ina siiya ikhlaaska man camila camalan ashraka macii gayrii taraktuhu wa shirkahu xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa man camila camalan qofka camal sameeya adduunka dusheeda camalkaasuu sameeyeyna aniga cid kale igu ladhay baa ilaahay yidhi ii shariig yeelay camalkiisa iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaa baa ilaahay yidhi saddexda qof ee ugu horraysa uu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee waa caalim waa taajir sakhi ahaa iyo nin mujaahid ahaayoo loo malaynaya inuu diin u dhintay saddex camal oo waaweyn bay la imanayaan kan waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummaddu cilmiga barayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaane sakhi maalqabeen ayuu ahaayo xoolihiisa u bixin jiray saddexda camal ay la yimaadeen ilaahay hortii saddexda camalba waxaa ku ladhnaa maaragtaane shirki baa ku ladhnaa deedna markaasa ilaahay odhanayaa adu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in lagaa yidhaahdo hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yidhi adiguna qaari baad ahayd qur-aan akhris fiican ama waacid ummadda wacdiye ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhegaystaan wacdiga markaad jeedinayseed ummadda wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiixi ayaa ha lagula yidhahdaa islahayd kanna waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysa waa hebel waa sakhi ha lagu yidhaahdo saddexdiinnaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu canhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray lilaahi waa inuu ahaadaa qofka muslimku waxaad dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin cabdillaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh
ayaa lagu yidhi man innaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu alculamaa dad haddaad i weydiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana ee aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azuhaad waa dadka zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedhbidhkayga waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaduc tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufahaa dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuu alladii yaakulu diina bidunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif muuminka qalbigiisu غل يا حسد يا بغض وعينه كهذا صليم وكي النبي لها حديث في السنن نين أهل الجنة نقول صوبح دونا من صحابة كمدا صوغلو سووا سيستي صحابة نكي بي فيريين هذانا مالين لبعض والنبي يقول نين أهل الجنة نو صوغلي دونا إسلام نكي با صوغلي هذانا مالين صدحات والنبي يقول نين أهل الجنة نو صوغلي دونا إسلام نكي با صوغلي عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabbihiina ismay soo diideen wuxuu rabay keliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yidhi ha soo aragtid buu islahaa iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeenan dadkii adduunya u tartamayaan adduunya u kala badinayaan cali ibn abi talib radiyallahu anhu ayaa lagu yidhi sif lana dunya adduunyada cali oo bal noo sifee markaasuu ku yidhi ma asifuhaa maxaan iigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal bal dadka maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkii baa daallan oo maalqabeenkii baa daallan oo madaxdii baa daallan oo shucuubtii baa daallan oo hooyaa daallan oo inantii baa daallan oo jaamicigii baa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka ahaa baa daallan kii miiga joogaa daallan kii diyaaradaha waday baa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bn abi aalib adduunyada haddaad i weydiiseen awalkaygu waa daal waa tacab buuhi waa tacab waa daal maba nasanaysaanba war ma la nastaa ma nasanaysid wa aakhiruhaa fanaa maxaa ka dambeeya dhammaad ama adiga dhiman ama adduunyada ka hor dhaqaaqi xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquubo adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabi xaaraanteeda man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xasan buu yidhi adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo stress iyo walaahow unbuu ku jiri ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku jira isaguna murug midna xisaabteedii baa dawakhisay midna walwalkeygii baa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa sidaa maaha adduunka iskaga meedayneen asxaabta nebigu aakhiraday u tartamayeen jannaday u kala badinayeen wa fii daalika falyatanaafasihi almutanaafisuun maadaamuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu 3 maalmoodoo isku xigta uu yidhi
nin ahlaljanna inoo soo geli doonaa cabdulaahi bnu camar wuxuu raadinayaa ninkani wuxuu ku mutaystay jannada ma sabab saddex habeen markuu martuu ahaa wax acmaal oo ziyaadaah oo inta iyakuba ay qabanayeen dhaafsan markuu ka waayey ayuu yidhi aabbahayna ismaan soo diidine saddex maalmood buu nebigu yidhi ahlaljanna inagu soo bixi doonaa adigaana noo soo galee camalka aad ahlaljannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa shanta waqti baa tukataa saacadaha dambena witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaata leylkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno markaasuu yidhi huwa maa ra'ayta buu yidhi intaa aad khayrka intaa aad igu aragta unba anigu aan sameeyaa wax kalama sameeye buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu yidhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa buu yidhi qofna caloolxumo caloosha aan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed soon iyo salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi qazawaadkii nabigeena sal alla alay slam qaswad ka mid a ayaa markuu nebigu khanaa'imtii u qaybiyey saxaabada nin ayaa yidhi markaa qismadan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina loogama jeeda buu yidhi hadalka ayaa lagu leeyahay nebiyullaahi moxamed calayh salaatu wasalaam balu fiirsada nebiga sicatu sadrihi qalbigiisa balladhkiisa eeg iyo baaciisa cabdulaahi bnu mascuud radia allahu canhu ayaa hadalkaa maqlay war maxaa tidhi qismadan la qaybiyey xoolaha sidan loo qaybiyey lagumana cadaalad falin oo cadaalad laguma qaybin ilaahay wejigiisana loogama jeeda buu yidhi hadalkaa ka warrama intuu leegyahay dembi ibnu mascuud radia allaahu canhu wallaahi in ma qarinaya nebigaan u sheegi buu yidhi markaa buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga wejigiisii baa bedilmay markaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi in lam yacdil illaahu warasuuluhu faman yacdilu buu nebigu yidhi ilaah iyo rasuulku hadday cadaalad iyaku samayni waayaan oo cadaaladdu xaggooga ka imani weydo ayaa kaloo cadaalad samayn buu rasuulku yidhi ereygaa markuu nebigu yidhi ayuu yidhi walaalkay muuseba calayhi salaam intaa in ka badan baa la dhibay oo uu sabray buu rasuulku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badan bay qoomkiisu ay dhibeen u sabray aniguna waan sabrayaa buu rasuulku yidhi markaas salaamatu sadri labada weligaa wuxuu ku yidhi xasuusan labana hayloobin ilaahay hayloobin daarta aakhirana hayloobin buu ka yidhi allah wadaar alaakhira allah waa kii ku abuuray ku jirsiiyey daarta aakhirana waa daartaan kulligan u wada noqon doona xaggeeda weeyaan allah waa kii ku abuuray muxuu ku abuuray macrifadiisu ilaahay ku abuurtay cibaadadiisa ilaahay ku abuurtay aakhiraduna waa daartee waa daarta addoommaha ilaahay uu ku sugayo ee addoommaha lagu xisaabi doono weeyaan inna yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfakhu fi suuri fata'tuuna afwaaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا ما لنت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قود إلا كل مدونان وما لنت ويوم الفصل وما لنت لك لصاري دونو ويان كيف عنائي كيف حمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار كان لك لصاري
كي وناكسنايا كي حما بالك على ساري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولقا هاي اللومن بوكوري لبدا ولقا هاي اللومن الله يكو أبوري هاي اللومن مر والبحصوصنو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حصوصنو هداد أقل كاقا جوكت إلهي حصوصنو هداد مسكيت كجوكت إلهي حصوصنو هداد عرك جوكت إلهي حصوصنو هداد دولك جوكت إلهي حصوصنو ولقا إلهي هاي اللومن لأن إلهي أذى أباهن قلبك إنه إلهي كبحن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبا نيدو كدو عيسنا يمحيهد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلوبتنا وحي كجر تابو النبي قولي إلهي تبارك وتعالى أصابع دي سلبا أسبوع كمدة كجر تابو النبي قولي يقلبها كيف يشاء صدو دونا إلهي يقلبها صدو دونا يقلب marka nabigeena ku ducaysanayo laha ilaaha qulubta bini aadanka gagadinayo qalbigayga ilaahu daacadaada ku sug ilaahu qalbiga maarifada ii fadhiisi fala nansa ilaahay nama iloobin isagoo isaan ku iloobayna inaku kuma iloobayo khalaqaka fasawaka uku abura uku jirsiyay asbaqa alayka ni'amahu zahiratan wa batinah إلهي نعمتي سواك كهوبيي تيدا موقتي تانا موقنبا أمني جيبا إلهي كسي أمنك يا أمنك نسيه إلهي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قفك واقو أقبري يستيبو نبي قولي سقو نبض قبع يجركي سيئو بض قبع قوت اليوم كنا مالنتا وحو عونينا هايستبو نبيكو يدي نعمدي ادويدا تالو دان waa la siiyay rasuulku yidhi waagi ba ku bariyay dadkaagii adigii oo nabad qaba amnigu waa nicmo ilaahay na siiyay ilaahay ku mahadiya amniga hal la ilaaliyo نعمة إلهي وبحيا نعمة أقوين وإسلام نعمة الله بعد علماء وحيدة وعافماتك نعمة صدق على هذه الله شيئا ونبت قليدا رب اجعل هذا البلد آمنا أمنه وقال ويان إبراهيم بكدو عايزت أمنك بشو مركي بلاتو نبي كدو عايزتو يري اللهم هلو باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم هلو علينا باليمن والإيمان بشيبا بلا نيسا وحاصلنا إن تكدو عايزتد بشاسين بركة كولا دلتا بركة إينا بدقليو إن أمن لدلتو إن أرزاقات بركة لكولا دلتو إن إسلام نمد إلهي كوسوكو إن بدقمنا إلهي كوسيو نبي الله إبراهيم عليه السلام وحو كدو عيسنا لبا شيبو إن مديس وكدو عيي ماركو بيتك إلهي وكدو عيني لبدا محي هيد إن إلهي دريديس الشركة إلهي وكايل عليو أمن إلهي وصيو وتوحيدك وعسر عيي إن بدقل يدي وهي هدان نبد لحيسن سيدان مساجد الله عمر مايو سيدان الله سو شغتك مايو marka amniga ilaahay baa haya caafimaadka ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyay waxa ka maqan ilaahay un baa ku haya fanasal min allah ilaahay wax walba han weydiisano ilaahay waa hayyi xishood badane adoonka adoo gacmaha kor u qaado iraada ilaahay waxa isii inuu faramadni ilaahay ku soo cesho waa ka xishoodaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam فلا ننسى بدل ما أنت إلهي وإلو بين قار زمنك يراعين زمنك قار مادة دي باقادتي قار شهوات كي باقاتي
yaa ka soo ridi marka yaa u nasteexayn yaa u damqan ilaahay mar walba xasuusnow dadkan ilaahay xasuusi aakhirada xasuusnow dadka aakhirada ugu yeedh mar walba labada qalbigeenna hadday ku weynaato macsiyaddu way yaraanoo taacadda ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay uu aakhirada xasuusan yahay bay culimmadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiya tacjiil atawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaad ilaahay uu siiyey ma taqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqadda iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa ta saddexaadna baa la yidhi hee annashaatu fi lcibaada daacadda ilaahay buu qofkaasi u jajabnaanayaa inaad salaaddu kuu dhib yaraato oo soonku kuu dhib yaraado oo qur'aan akhrisku kuu dhib yaraado oo fadhiga masjidku kuu macaanaado oo diinta barashadeedu kuu dhib yaraato oo camalfalka diintu kuu macaanaato waxaa keenaya waa haddii qalbigaaga mar walba ilaahay aad ku haysid aakhiraduna ay ku hor taallo labadaasi haddii qalbigeenna ay ku yaraatana saddex cuquuba qofka ku dhacda saddex cuquubo cuquubada koowaad waxa weeyaan baa la yidhi toobaddu ayuu dib u dhigtaa horey u toobad keeni maayo ila waad dhimanaysaa isma le muxuu isleeyahay waad noolaanaysaa buu isleeyahay qanaaco ma yeelanayo qalbigiisu qanaaco ma yeelanayo waxa adduunka maal yaallo oo dhan siduu ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn mana helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyn tahay cibaadadii iyo taacaddu u dhib yaraanaysana kana waxaa ku dhacaysa alkasalu fi lcibaada cibaadadii ilaahay baa ku noqonaysa culays miqdaad saxaabiga la odhan jiray radia allaahu canhu ayaa habeenkii markuu jiibsanayo waxaa la yidhi uu gelgelan jiray saasuu u gelgelan jiray sida dheriga marka biyaha la saaro ee dabku ku ziyaaday biyuhu karsamaan siday biyuhu ay isku labaagediyaan ayuu habeenkii u gelgelan jiray sidaas markaabay xaaskiisu ku odhan jirtay maxaad la galgalanaysaa maad seexatida markaa buu ku odhan jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu odhan jiray nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yidhi shibta nebi allow ciradii baa kugu badatay baryahani maxaa jira markaa buu nebigu yidhi shayabatnii huudu wa akhawaatuhaa suuratu huud iyo walaalaheed baa cirada iga soo saaray buu rasuulku yidhi suuratu هود وأخواتها عما يتساءلون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سورة قيامها كورمايا آية النبي محمد عرضة كسو ساري سورة هود مركي الله بارينا آية النبي محمد عرضة كسو سارتي وحي علماء كشيغين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga hawacweecan istiqaamada markay culimmadu ka hadleen waxay yidhaahdeen waa laba buurood oo afiiqan dushooda u la dhigay oo la yidhi qof bini aadana halkaa dulmar siduu u soconayaa siduu u socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku maraya halkaa cabsi فاستقم كما أمرت سيدي الله أمرك كتوصنو حق إلهي إلالي حقوق ذا بني آدم كقوليهين إلالي مالك قيامة وحاتم عدا أدو بني آدم وحبك كقول شيئا آخرها هدات مادا أدو وحلقوها حيستو وكي النبي يقول لها أتدرون من المفلس قفك عيدا ميات قانان صحابة وحيدا عيد وحنون قانا أنكو qofka diinaar iyo dirham iyo mataac waxba aanan haysan markaa buu nebigu yidhi qofka caydhu waa kee waa banka qiyaamuu la iman doonaa salaad iyo soon iyo zake iyo xaj buu la iman doonaa laakiin dad fara badan baa halkaa hor joogsan doona dadkaasi isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkani waa i dilay
mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygay buu iga dhacay mid wuxuu u leeyahay dhiig buu iga daadiyey markaasaa la odhanayaa waxa li waxa uu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku geliya markaabaa la odhanayaa weliba dad kala hadhay oo addoonka maaragtaana ku sheeganaya xaq markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah muflis qofka caydhu waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aado jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intoo madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegin wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba toobadda inoo furan waa inaan ilaahay u soo noqonnaa daarudunyaa joognaa maanta fursad baan haysanaa innaku dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka وبقدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق هدبا انت إلهي أدقو أتكعب صوتد أيا مخلوق أدقو كاهي بسنيان هدبا انت أدقو إلهي أتجعلاتد أيا مخلوق نكو جعلانيان هدبا انت إلهي كعب صوتد كن لي كما أريد أكون لك كما تريد حديث القدس إلهي بالله صدى الربانيك إيال صاد ربتنا أنا كوسي لي سيدين ربنا ما أنت إنك تذكر دن محي ربان عريدي إنك بحان بين ربان فقر إنك بحان بين ربان ذل إنك بحان بين ربان مصائب إنك بحان بين ربان ضيق الصدر إنك بحان بين ربان وحالي وحاد كقبح لهيد عريرك الدنيا عريرك آخرة ومحي حرق إلهي قبصه واتي صحابي الربعي بن عامر وأشياء مارك تاني مدحي وين الرفرس رستم الله ابتعثنا إليكم بكيري رستم قائد قوات الجيش بها ربعي بن عامر بأوي مدول الله صادروا للأرض لصو هذا هذا دجال ربنا ديار بنونا هاي هذا صلح ربنا ديار بنونا هاي ربعي بن عامر مركوي مدي وعوري أنكو سداد نوم لين إنسان منهن وعانا ددي لهي الدنيا وصوا صاري بنا هاي يعني صوا صاري لا هي لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأذيان إلى عدل الإسلام بكويري عجيب وحنا الدوية أنك اسكمنوا إيمانه وما الله صو صاري بأن هاي ونبي جدي بلا الله صو صاري عليه الصلاة والسلام سيد النبي محمد عالم قال لو صو صاري إنه رسالة دو قارسيو أيا أنك هدانا يا أصحاب تيسي إلهي بأن صو صاري بكويري لنخرج من شاء سي أن وصارنا كيدونا عبادة أي عبودة يا نضومها السدودة ونصارنا مارك تاني عبادة إله واحد كا وأرك ما أنت مسلمين تو أي فهم الأيهين ومن ضيق الدنيا عريرك الدنيا إنا كسرنا ضدك على نوك ينبود عنك ونصارنا إلى ساعتها نولش الدنيا بلع عيقي بلع كيكا ورقالادو عريري بيكون نوشا عريري بيكون جيران مسلمكم مركو دين تدبو قاتنا سعة يكون جرا سعة في الرزق وسعة في المال بيكون جرا ومكور سعة كجرا سعة ومكور عريري مقالايو نولش وحا عريري قليني ومحي ومعصيدا نولش وحا سعادة قليني وطاعة إلهي ساسو كوري صحابي قاس
cidhiidhiga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo nii saara nolosha adduunyada balladhkeeda iyo waasicnimadeeda wa min jawri aladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buuhi annaku oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawri aladyaan diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga saarno niga dhex saarno oon u saarno dadka maaragtay diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka rustum baa yidhi aduma amiirkii ciidankaa tahay may anu mid jamaacadda muslimiinta ka mida un baan ahay buu yidhi markaasuu yidhi waan soo tashan doonaa iyo iska soco u socday nin buu u yeedhay markaa rustum wuxuu ku yidhi 3 maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan ood la cuntid ood la seexatid ood eegtid deedna marka aad ii soo noqotood iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninkaa la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninkaa jaasuuska ahaa markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu yidhi maa waraa'aka ragga aad u tagteen kuu diray bal ka warran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun binnahaari wa ruhbaanun billeyl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubbaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka innagu khamriga aan cabbaynana iyagu khamriga ma cabbaan halka innagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka innagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka innagu aan kala sarraynana iyagu kala sarrayn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanidin meel keliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan hadday qaadaanna ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada innaku aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaanba iyagu ay jecel yihiin buu yidhi عجيب لئن كنت صدقتني ليملكن ما تحت قدمي هاتي بود هدي تهي كرون شيغايا صفاتك ادي شيغيسد اي مسلمين اد كو شيغيسد هدي مسلمين صفاتك اي ليهين كرسيغيغا يا خزائنت ذهبك هوستيدا تالا مالين اي قبسدان برغاس way qabsan doonaan buu ku yidhi nolosha adduunyada raaxada adduunyada عزك الدنيا شرفت الدنيا هرمرك الدنيا خيرك الدنيا يا الله ولا ليال ايدتكم انت اي رادين يا الهي مالك لما قالن الهي وحوق لي ان امد الهي وصل نقطه بس ان الهي الله صل نقطه وتوبوا الى الله جميعا حكو حقا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فلاح با دونيسان ها صل نقطه هداد مسلمين هداد مؤمنين الليبان دونيسان سو نقض بولاهين ليها جماعا ماها كلي ماها جمع كو سو نقضا امدها سو نقطها توبت كانت تفلحون فلاح الهي با فلاح شاقي والاسلام نمد الهي با كو شاقين لغو ليبانايو حي على الصلاة حي على الفلاح بمؤذن كلية صلاة حقيقة أو كالي الليبان حقيقة أو كالية صلاة والليبان صلاة ولا تكذا لقول الليبان يا مهرد هذا وصلاة كوكود أفتر لقوم الليبان أيو أمر كيله يا الله قاتل لقول الليبان قد أفلح هي الليبان مؤتت إيمان كلا الليبان يا صلاة دي بقول لي والليبان تأو كالي ليبان با إلهي شيء إلهي با ليبان شيء مركا الليبان تو دين تيكو جرتا دين تاسنا الحمد لله إنك إلهي دين تاو نسيه ونقول لي والله دادك ودنك كن نول بقولال كن أو جرب على الربا إلهي نكون شكرنا دل دين تودو مديسان تهي عقيدة تودو مديسان تهي مذهب كوغو مديسان يهي luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhiga maanta innaka wadarkaasaan caalamka maanta waxa ka socda
nicmada ilaahayna siiyey inaan ilaalshanaa linaga doonaya oon hareeraha ka wada joogno oo caamadeena iyo culamadeenna tujaarteenna fuqaradeenna odayadeenna dhallinyaradeenna dowladeenna shacabkeenna waxaan ku faanaynaa waa diin waxaa la rabaa inaan diinteenna ilaalshanaa linaga rabaa diintaan saan ku ilaalinaynaa markaas waa inay qalbigeenna ku weynaataa diintu kow marka labaadna nolosheenna diintu waa inay ka muuqataa oo mujtamaceenna waa inay diintu ka muuqataa dhallinyaradeenna waa inay diintu ka muuqataa wiilasheenna diini waa inay ka muuqataa gabdhaheenna waa inay diini ka muuqataa tijaaradeenna diini waa inay ka muuqataa xukuumaddeenna diini waa inay ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummaddu inay isku bedisho laanna zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiyo ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zamankii diinta weeyaan nabigeennaa sii sheegay sal allahu alayh wasalam almutamasiku bidiinihi kalqaabid cala aljamra waa zaman ayaa imanaya buu nebigu yidhi sunnadayda ninka idhahda waan qabsanayaa uu la mid yahay nin dhamac haysta ha sii dayna xajiso waayo fasaadkaa badanaya sharkaa badanaya haddana sunnaha noolaanaya waa ka nebigu sheegaya ka sunnaha qabsada zamankaas waxau la mid yahay nin dhamacaya buu nebigu yidhi dhamac ma hayn karaysid laakiin xajiso lilcaamili fiihinna ajru 50 rajulan ninka diinta sunnada markaa qabsada 50 nin ajarkood buu nebigu yidhi ayuu qaadanayaa saxaabi baa sare kacoo yidhi man 50 annaka mise waa 50 iyaka ah maya waa 50 ininkaa buu rasuulku ku yidhi 50 ininka fii sunan tirmidi 50 asxaabtii nebi maxamed ajarkoodii buu qaadan maanta ninka zamanka diinta qabsada نتمسك دينتنا قبسنا إن شاء الله هذا دلنا يردنا علماءنا عمدنا جزاكم الله خير الله ينجى جزاء السيو سادو سوق بشان كلن كعاوة علماء وين نقول مرتقى هذا أنا كو أرضي بنا علماء منهن ساجد كان مركز العلمي ummad oo dhan baa ka faa'iideysata cilmiga halka culimadu ay ka bixiyaan runtii meel kasto ay joogaan dadka af Soomaaliga ku hadla masaa'isha diiniga sheekheena jazaahullahu khayr halka ka bixinayo caalamka oo dhan baa ka faa'iideysta maanta marka anagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin haddana waa talab waa nasiixo weeyaan anagu caamadan wacdinaa inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxaa jirta jumladlayaal oo badaacada jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxaa jirta tafaariiqlayaal Soomaa bagaashlayaasha hadday labada ma kala maarmayaan ma kala maarmaan anagu marka tafaariiqlayaal baan nahay xadiiska culimada aan ka maqlo ayaan maalin batuulo gaarsiinaa caamadana waxaan leenahay caamoy culimada garab han siino seen garab culimada u siinayna wixii culimadeena aan ka maqlo ummadda han gaarsiino طفيل بن عمرو الدوسي انتي نبينا او كم مغلي ايو يري تولكي انا غادسيني يدر بوكيدي تولكي اني امرؤ لمطاع في قومي نين وحانا ددكي سؤاد دغيستا نبي الله وشاعره ادر وادر النبي صلى الله عليه وسلم marka uu soo noqdo yiri calaamad la igu gartay ilaahay ii weydii markaasuu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii maleynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsigaga dhacday u maleynayaane ilaahu nuurka halkan iga qaado jeedalka faraskayga la dhacay iftiinka igu bedel buu yiri والله ugu badilay waan shalay islaamay ayaa ducadiisa la aqbalaya inaka ducadeena ka warama maanta ya nin shalay islaama karaamaadka durba ka daahiraysa iyo nusradii inaka diinta islaamka ku dhalanayna ma aaminsanin ducadeena ila aqbalaya maanta uu tagay waxa ninkaasi tolkii karaamo ula tagay karaamo leenabiga karaamo weydiistay karaamadiina waa la siiyay waxa la yiri in yar baa ka soo rumaysay intooda badan way diideen markaa buu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam markaa buu nabiga u yimid uu ku yiri reedows ilaahay rasuulkiisa way caasiyeen habaar buu nabi allah ilaahay habaabiye markaa buu nabigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nabigu inuu habaartamayo
waxay yidhahdeen reer dows way halaagsameen maanta markaa buu nebigu ilaahu reer dows soo hadee qalbigoogana adiga haya ilaahu diinta jeclaysii buu yidhi muu habaare mise wuu duceeyey ducadaa horraysa طفيل بن عمرو الدوسي من نبي قوي ياري هذيك أنا وحى وكل طفيلو مركز أمة خير كادو شيء يسد أرد بربوكيدي أودتك الجعليسيها فرحين دتك نهجي دعوة أنا يسقي بالله صحي وأنا أدعي النبي قو لبدا أبو الله النقضي لبس صفو عجيبة دعوة قصة ليس طبيعة وناكسن يدعو لبدا بكل النقضي قوم كيسا عن بكرة أبيهم ريدوس وأبا هريرة ودح سعودو أي نبي قو كان يكو صوت إسلام مدينة المنورة كرامتكم إسلام وعكو إسلام أخلاق دي يدعى دي انتي نبي قو كم مغلين أمدي سؤو قرسي إنك أنا ما أنت إنتنا رجعنا على القافر دي قريها كنا قلنا إنه وعلى جاي أبا حدي تدوقف أقل كوسوين الصحابين كي إن أما الله بقى يكتو كتو أما صدق كتو كتو تاريخ الصلاة قالوا لح فرينا كورما مركز دعوة دا maaha mas'uuliyad culimada kaliya saaran hamoodina ummadan ilaahay ba shaqada diinta ugu talagalay ka shaqayso insha Allah cilmiga culimada aan ka qaadno ee jumlada kaga qaadno inuu tafaariiq la noqdo yaa diyaar umada gaarsiiyo ya ma sha Allah Allah ina barakeeyo jazakumullahu khair sidaad noo soo dhaweysana Allah inoo soo dhaweeyo kulligeena jannatul firdaws Allah inagu kulmiyo waxa aan ku hadallayna ma aragtana wixii aan asiibnana ilaahay baa na waafajiyay وحي أنقفنا وقف حقيقة كيمدي إلهي بان دمداف ويديسننا وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qof walba ka kurbaysan kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad